Soomaaliyeed oo muddooyinkan dambe la kala xayirmay oo aanan la hadlo ayadoo ay weliba si gaar u taagan tahay qadiyadii badda oo ummadda Soomaaliyeed oo meel kastoo ay joogto muhiimadda weyn u lahayd. Waxaan rabaa qadiyaddaas si kooban inaan ula hadlo. wixii faahfaahina macluumaadkeeda waa meel walba waa laga heli karaa, laakiin waxyaabaha aan isleenahay in ay ummaddu la socoto ayaa loo baahan yahay. haddaa xasuusataan horaantii 2017 ummadda intaan soo hor istaagnayaan waxaan ku iri aniga qadiyadda badda haddii aan madaxweyne ahay iyo haddii aanan ahayn iyo haddii aan xil hayo iyo haddii aanan ahaynba waa u taagnaan doona, waana u taaganahay anoo ballantaas fulinaayo. marka maanta waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan la wadaago xaaladda maanta ay ku sugan tahay qadiyaddaas oo ahay weyn oo muhiimka noo wada ahay. taariikh yaroo kooban haddaan ku bilaabo, waad ogtihiin bisha Agosto 2014 ayaa dacwad maxkamadda cadaaladda adduunka ee magaalada Hague. sababtaan u geynana waxay ahayday 2 jeer dowladda Soomaaliya waxaan isku daynay annaga iyo dowladda Kenya berigaas inaan ka wada hadalno arrinta dacwad intaanay gaarin. 2 jeer ayaa wafdi ballaaran oo wasiirkeennii arrimaha dibadda ee berigaa joogay oo ah wasiirka maaliyadda ee hadda dowladda federaalka ah iyo wafdi uu hogaaminayo ay ka qayb galeen shirkaas, iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya iyo wafdi uu hogaaminayo. waa laga wada hadlay 2 jeerba, waa la isku noqday, labadaa la isku noqday, waa la isla keeni waayey. haddii marka la isla keeni waayey dowladda Soomaaliya door kale option kale u furan ma ahayn oo aan ahayn sida caalamka iyo qawaaniinta caalamka iyo xeerarka caalamka ay qabaan in maxaan ku yidhaahdaay dacwad la geeyo maxkamadda caalamiga. dowladda Soomaaliya go-aankaas ay qaadatay berigaas sidaasaa la yeelay, dacwadaan ka geeyo. taasaan rabaa marka macnaheeda inaan mar horena waa ka hadla, haddana ku celiyo dacwad inaan ka geyno macnaheeda annagay Kenya inaan isdagaalsannahay ma ahayn. dacwaddaba waxaan u geynay inaanan isdagaalin oo colaadba aanayna dhex marin. annaga Kenya 2 daloo deris ahaan nahay, rabitaankayna deris kuma ahin. marka optionka keliya aan leenahay waxa waaye in aan maxaan ku idhaahdaay aan cilaaqaad fiican iyo deris wanaag fiican inaan lahaan. si marka deris wanaaggaas iyo cilaaqaadkaas fiican u jiraan aan u aadnay maxkamadda caalamiga. waa ogtihiin ummadda Soomaaliyeed dhanna way og tahay maxkamadda keyskeeda intuu taagnaa annaga iyo Kenya wax cilaaqaad kuma ah iyo wax war kuma ama dhex mari ma jiro. madaxweynaha Kenya dalkeena soo booqday, anigoo markaas berigaas madaxweynihii jooga dalkaas dhowr mar booqday. shirkii igadoo markii ugu horreysay maxaa halkan lagu qabtay qadiyado badan oo ama heer gobol leh ama heer caalami leh dowladda Kenya ay nagu garab istaagtay berigaas oo ay dowladda Soomaaliya ugu hiilisay oo ay ku garab istaagtay. marka wax cilaaqaad xumaan ma jirin, dacwaduna waa taagneed, waa socotay. marka horta keyska gaar ahaan guud ahaan taariikhdiisa hore sidaasay ahayd. maxaa jira maanta waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego la wadaago 4 sano ka hor meeshii aan uga tagnay ayay qadiyadda badda weli taagan tahay. 4 sano ku dhowaad meeshii aan uga tagnay taagan tahay. 3 jeer ayaa qadiyadda badda dib loo dhigay. dowladdeenu mar walba waxay noo sheegtaa in ay diidanayd in dib loo dhigo, laakiin wax caddaynaayo dowladdeenu in ay diidanayd marna dowladdu muxuu ahay shacabkana lama wadaagin. golayaasha muxuu ahay inay la wadaagtay ee sida golaha wasiirada iyo golaha maxaan ku yidhahdaa baarlamankana lama wadaagin, laakiin afkana looga sheegaa la yidhi annagu waa diidanayd. maxkamadduna xukun qaanuunka dugsan markii la qaadayna qodobuu leeyahay, qodob hebel loo cuskadaa. markii sidaan oo kale dacwadda dib loo dhigay xeer jajab ay tahayna labada dhinaca inta la isugu yeero laga tixgeliyo ogolaanshahooda maxkamaddu markaas ay tixgelisahay dhinaca ay u baahan. in markii koowaadna codsiga Kenya la aqbalay maxkamaddu aqbasho, markii labaadna codsiga Kenya aqbasho, markii saddexaadna codsiga Kenya aqbasho. waxaan isleeyahay meeshaas warkaasi sax ma aan qaban. haddii uu sax yahayna dowladdu waxay ku dhiiranayd dadaalka ay ka gashay inay shacabka la wadaagto u sheegto oo aan ahayn annaga saaraa aan ahayn. marka taas waa midaas.
meesha kale ayadana ay muxuu ahay dhibaatada ku jirto dacwadda waxaa mas-uul ka ahay dad Soomaaliyeed ah hogaaminayay dacwadda lawyer caalami ah oo Soomaaliyeed oo gabar Soomaaliyeed oo qiimo badan ah ayaa hogaaminaysay dacwadeeda waa la wada yaqaanaa dadku way yaqaanaa wejigeeda muuqaalkeeda iyo afkeeda munashar xeer ilaaliyaheeni guud ee birigaa joogay oo aan hadda joogin munashar maan hadda ma joogto ka mid ma ah kooxdii dacwadda waday xeer ilaaliyaheeni guud ayaa asna ka mid ahay dadkii dowladda sida saddex qofood dowladda u saartay laba qofood oo dhinaca sharciga awgiis loogu saaray iyo qof dhinaca diblomaasiyadda iyo siyaasadda awgeed loogu saaray xeer ilaaliyaha guudaa ka mid ahay oo ka mid ahay tilka oo dadka Soomaaliyeedna u hadli jiray waad ogtihiin maxkamad muga laga soo bax banaankeedu ka hadli jiray dalka mugu ku soo noqdo seminar iyo workshop la qaban jiray xeer ilaaliyaha ka hadli jiray baarlamaanka hortagi jiray ka hadli jiray dadka Soomaaliyeed si macluumaad farsamo oo sharci oo rasmi u helaan safiirkeeni loo joogay midowga Yurub ayaa ka mid ah saddex qofood oo dhinaca diblomaasiyadda iyo wakiilka isagoo qofka maxaan ku yiraahdaa contactiga safaaradda ila soo xiriiraysa labada qofood oo socda qof ka mid ah saddexdii qofood maanta midna kama joogo dacwadii keeskii faraha ay ku hayeen kuma hayaan saddexdoodii intaas waxaa ka sii daran dowladdu nooma sheegin ciddii lagu bedelay saddex qofood waa la bedeli karaa waa dhiman karaan ayagaa muxuu ahaa shaqada ka tegi karo qaladaada inta galaanaaba muxuu ahaa shaqada laga eriyo wax kastaa iman karo laakiin meeshii mas-uuliyaddii yaa loo dhiibay ilaa maanta ma ogin looyaradii afartii gaalmaa isku hartay ajnabiga ahayd bismaa gacanta ku hayso safaaraddeeni Brussels aniga ilaa hadda maba ogiba in safir loo magacaabay in kale yaa joogo waa warqad rasmi ah oo annaga madaxweynuhu qorayna saddexda qofoodba ay ku shaqo tageen shaqada ku hayeen xeer ilaaliyaheeni guud waa joogaa ma oga inuu dacwadda badeed oo shaqo ku leeyahay booskiisa waa bala joogaa laakiin shaqo ma ku leeyahay waa keys dacwo markuu jiro waad ogtihiin bulshada rayidkaa tegi jirta saxaafadda Soomaalida dadka mas'uulaa tegi jirta baarlamaanka dadka socdaa jirta qurba joogta muxuu ahay dowladda Soomaaliya marti qaadi jirtay inay ka soo qayb galaan oo ay dhageystaan oo ay dadka Soomaaliyeed la wadaagaan wixii meesha ay ku soo arkeen war maanta yaa ka qayb galaya yaa ka warrama ونس وايد مرة وحنا مقنع رئيس الوزراء حقيقة ومحاك كل هذا كهلا من قيمة بدن شرف له مسؤول الصوماليات لكن دعوة عن رئيس الوزراء حقيقة إسكندر وزير مر محاك كل هذا مدحوينها إسكندر دعوة ورقد مدحوين ليها لوجي دعوة ضدك وكيلك أو ورقد مدحوين ليها لوجو مقعابي waxaan rajaynay inuu niyad sameeyay gudubta xeeray madaxweynuhu dadku inuu hor yimaado oo dadku u sheego waxa jira ma xasuusto aniga maalin madaxweynuhu dadku hor yimid aan ka ahayn waraysigii dagaalkii Kenya oo Kenya dowladda Kenya iyo dalka Kenya dagaal lagu jiray aan u arkaynay qadiyad dadka looga hadlay aan ahayn bad ku saabsan badeeni marka xaaladeeda muxuu ahaay meeshaas ay maraysaa marka waxaan rabnaa in maxaan ku yiraahdaa بدي أساس مخطط وضد الصومالي أنا يقرني وحمانت السودان أنا قلت كين علاقات بين أسبوعية سببت كل يوم أنا كين علاقات كانوا لحمة وحيتاج ضد الصوماليين إن لقل لي حيو مشاكلات كفراء بدن الدولة ده هايست هوجان كذلك المدح كل رلايين ضد الهوري ما داني بحوش شجان دبعت ذلك الوضع دبعت الظروف الجارة كجرو دبعتهم كوانا عيان ويجران لكن ضد الهوري ما ذا الله شر دب كان أجرا وحنا مانتنا هايستو سيدا أنا دلار كان كسميني وحنا كدعي سانا قرنا هنا نوجهن أما محي إذا لا تهاي ليرادو ذكر الصور استغفر الله شر الله محي ما أردتين ولي ولدين وحكى هذا الشيء marka mashaakilaatka yaryarka ee gudaha ka jira kuwa waaweyn intaba si looga leexiyo dadku aanay su'aal uga keenin cadow in loo abuuro xuduudan soo xiraya xuduudda Kenya maxaa laga soo xiraya kumanaan ciidankeedii ah dalka gudihiisa joogeen maxay tahay macnaha oo xigmadda ku jirta xuduud in la soo xiro ya marka arrintaasi ayadana marin habaabinaya annaga iyo Kenya darisaanahay ma kala tegay ما كانوا جورين، نجمع جوري كران كم جوري كران، إن عند قناة واقع قصبنا، لكن سيد دبلوماسية كنت تاون رقمنا دبلوماسية دينا هذه وضع هذا اليوم هو ورا الله يحل اسمه هذا مالي اللي هو طلب عالم وتجينا اسمع ماينو استقال ماينو ما اسمه محيي
laakiin in la waxaayo oo maalina la yiraahdo muxuu ahaay Jubbaland in ugu haysata Jubbaland dal Soomaaliyeed waay mushkiladda Jubbaland ka jirto mushkilad Soomaaliyeed waay dawladda Soomaaliyeed laga rabaa inay xalliso Kenya waxba ka gelin digadan waxba ka gelin meel kale waxba ka gelin haddaan kaalmo loo baadana kaalmeeyo waa la dhihi karaa oo inaga gasho laakiin ma arkaan inuu gasho waxaan kaloo rabaa dadka inaan u caddeeyo u sheego muddadii oo dhowrka sano ahayd oo dacwada annaga aan gacanta ku hayno wadno maalin ka mid ah ninka hadda Jubbaland madaxweynaha ka ahaa jooga Axmed Madoole maalin ka mid ah qadiyadda badda kama hadlo maalin ka mid ah xataa inta loo yimid qadiyadda badda maasaan la yeelay maasaan la dhahayo weligiisna ma dhihin kama hadlo soo ma qaadin qadiyaddaas qadiyad oo national inay tahay waa la wada ogaay reer Jubbaland waa ku qanacsanaayeen dadka soo dawladda Kenya waa ku qanacsanay ma garanayo aniga hadda mana ogi meel ay Jubbaland xataa cadaadis ku saartay kula hadashay marka waxaan rabnaa wuxuu magacyada ay leeyihiin in loo bixiyo in 4 sano ka bacdi maanta la yiraahdo sanada dib loo dhigay dacwadii bila maaha bari maaha corona soo har corona in uu iska noqdo muxuu ahaay wixii maxaa la dhihi jiray islaan saas ee areera shabis ku halata ma ee wixii la dhihi jiray la iga aadan gabdhaha waxa waaye wax walba oo jira corona waa in la yiraahdo qofkii shil ku dhintay corona dilay kii maxaan ku iraahdaa wadno istaaga corona dilay siyaasadda inta corona saan yeelay war waxaas waxa waaye ay waa ka bariyo waay waxaas macquul ma corona jiro mid kale jiro shabaab shalana haystay on 10 sano ka badan la noolnahay corona hana shal yimid birina waa baxa corona maxaa ku qosay bilaa soo socdo nala jooga ilaahna lama joojiyo bila iyo maxaan ku iraahdaa isbuuci sanad ilaahna lama joojiyo biruhu isbuuci hore isbuuc daban wada maado waa ko adduunyadii waa cusub u bari waraa loo dhaqaaqay corona oo jira la shaqaysto waa la shiraa ma ogi dawladda inay shirka iska dhaafto iyadu aan shirin ma garanayo laakiin waxaan ogahay caalamku waa nool yahay waa shiruha ma ka dhacayso waa shirtaa adaa caalamku waa shiraan madasha xisbiyada ugu dambeysay arkaysan waa shirtaa isbuuci maalin shirtaa ayadoo dalka dibadiisa kale lixda gudoomiye xisbi madaxda ka ah hal gudoomiye xisbiya dalka laba gudoomiye xisbi waana safar laba gudoomiye xisbiya dalka dibadiisa ka jooga hal xamartii hal garow jooga afarta kale dibadda jira waana la shiraa maalin kasta waan isku yimaada maxkamadda caalamiga technology ay ku shirto hadal ay ahayd awalba maxkamadda waa la hadlayo dood ay ku shirto ma qabto caqli hadal meel ay ku hadasho ma qabto awooddaas ma laha technology-gaas ma qabto waxaas in la yiraahdo waxaan u haystaa in macquul ma maxkamadda caalamigaana ma tixgelinaysa hal dhinac lama tixgeliso shalay haddii Kenya ay ku doodo looyaradii aan faayar garayno shaqada ka erinay looyaro cusub inaan qaadanahay waqti inooga baahan tahay qadiyadii inaan fahamsiinana waqti inooga baahan tahay oo laga aqbalo maanta haddana corona jiro corona caalamka dhan ku jira Kenya u gaarmaa Soomaaliya u gaarmaa caalamka dhan ku jira marka cudurdaar fiican ma aha qaba aniga waa marmarsiyo yar dawladdooduna ay qayb ka tahan qaba haddaanay qayb ka ahayn ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto marka waa wax arrintaas oo dhan cudurdaar fiican uma aha sideedaba corona shalow yimid ma dheeray laakiin 4 sano qadiyadda inay meesheedii taagan tahay waxba aanay ku darsoomin maxkamadda dacwadan ma qaadi kartaa laga mid waa qaadi kartaa halii kiiska la baristo in marka la ko dawladdu dib u dhigistii ka horeysay waxay noo sheegtay maxkamaddu inay tiri dib looma dhigi karo dacwadda documentina iyo wax kale laguma soo kordhin karo faylkeeda in loo yiri horaan loo sheegay maanta haddana dacwadda dib loo dhigay oo maxkamadda tiri marka alif wuxuu leeyahay wax male dawladdu ha kala deyso alifka ama wax u yeesho ama wax la'aan ha ka dhigto 4 sano inay ummadda Soomaaliyeed meesheedii taagnaato macquul maaha marka qadiyadeeda badda marna gorgortan ma gasho haddii gorgortan ma gasho yani haddii aan Kenya walaalaheen aan ku qanci karno annaga horaan isugu dayno waa ku qanci weyn war meesha aan sharciga xaq ah u leenahay oo leynkeena xadkeenu waa meeshaas ee raalli ahaada aan marsiino waa ku qanci waayeen waa diiday haddii dawladdan ay ku qanci karto Kenya inooga keeni karto maarigaa waa maxaaba kala rabnaa laakiin wax kaloo laga hadli karaana garanay Kenya in lagu qanciyo war annaga qadkeena intuu maraa raalli ahaada xagga ma mareen
وحفي عني أهله دعونا ما نعلن محكمة لما تجري هذه دولة دي أنت أي كرتو وفي عنها وما هتكلمنا وحكى له ربع أمور الصوماليين أنا وشابه دولة مركي عدالس وكل مني مركي حوجا أي شاقتي يضل إن عدالس وهاي أنا وقرب استغني ببلغان نقولني وددان استغني إذا عدالان استغني واشاقني إن قد يدين إسلاتها عد عدالس ساري كرتي عد كذا عدالس وجرا والقو إيمانا دولة وين أكو إيمانا دلال ملال وطما أكو إيمانا محوها هاي وحكو إيمانا يوحي محنكو إرادة يلا هاي وطما أكو إيمانا والقوة إيمانا لكن هذا الغرب أو حاجة إن أو نظام هو دفاع إنه قانون تكتقل كعالم جاي وتقل كسودان أو أبو إن هو حاجة أكو إلى شتى أو أدمحو هاي كو هبيستي على الغرب مركب وحنا ربع قدام بيتي واقعهم هاي إن عندنا مركلة إن وحي عن تضريت سبب كلامكم تضريتهم بالله ويس عن كهذا ما تعب المشي أي وجود عن كهذا ما أنت الآن فرحنا نالون دبال دبلو ممكن واحد ما عندنا محن كنا أساسي حكم قصاص وضع عندنا أهي لكن ما أنت الآن عندنا دي بالله دي السنة حاسو كله طبعا بلو هذا بعد أو ما أنا يوم يا دولة أو حل جيد هذا السيد عايو ما بقدم إياه كعربي أو كنت كعربي مياه دب إيجاد مياه دب إيجاد هذا عندي كلام هذا كورنا وكالي دولته مسؤولية قرن ما أصارم مسؤول قفك مدحلا الدولة الوحيدة ذاتك كذب إن أنا دبعت أبوري حكم قفك وقد بينيس الدولة كذب بينيس إن أنا قد حجيت كلاسي دقيقين البلاي ولا شيء قد حدق دقيقة مياه تنمخ مارسو لبكون إلا باتين يكو دولة كلا العل هديت مال هكون دبتوت مياه يا دي رنا الآن مياه أو العل هدي أو حكم كسيدي عن رمي ونقوى شعب كاب قبصنا مياه من محكمة تجي أم حكم وهلا أم وينا أم الله حكومة أم الله حكومة هذا محكمتك تلا بدأ سد متسوقي لكن هذا اللي قرب قرط هذا سيدا ونقصر له عبد السلام إن لقى بقى مركو أو اللي يرادو ورلعل وأنت سو جد اللي لقوا رجاي بلتي بانو لو قدو قوة ضبط إيمان دون هذيك وكر إيمانان كواس اللي هلا تعالان مية ما دولة وحاو على ميسان إلى محوها فبراير مارس بيشكور فبراير لا بكون إلا باتني كو إن سي جارت ما هو على ميسان وأي حوجا محوها سي جي تحرق ما وحاسوا شرعية المركز هايستين محمد هذا يقول جبجان هذا ميري وده بيسجد دولة المركز أنا وكله وحول بوا أنا إسكسوا حددا أو أي كو أروفتا ترانسيشيكا كلا جور كسيد الله ماري لهاي سنة بدل الله ماري لهاي هي وحيابها إسنشال كهو أمن ذي واحد كم دين إنه يحوق ساعته لكن إن محاك إلى هاي لا لابتوب حوا هاي محمد تريس حوا يرينك يا أضيق هاي مرو لازم لم يسمع دولة مركز دبوا ماشي كسر عين هذا الحين كهاي سنة وكسر عين هذا كتكت إنه كسر عين أساد جوج بري أساد ولا هاي للوضعاني محوا هاي ما أنت محوا هاي جامع جوجا لا تهم ماي هذا جوجت دواب جوجتاي وابن هاي كتاب ومركز سبتاعي مركز محوا هاي أرنتاس ومدة الصومالية ما قبضته وتعزييننا إن قد يدي بدأ مدة 4 سنة ماشي دي تاجن هاي waxba aan kala sida qadiyada kale badan ba ay meesheedu u taagan yihiin 4 sano ee la soo oo si gabagaboobayso muddo xilaadka dawladdan ahayd doorasho maxaa laga qabtay yaqaan inkastoo maanta mawduuceena doorasho aanu ahayn oo maalinteeda aan ka hadlo maxaa laga qabtay ismihii ciidamada maxaa laga qabtay federaaleyntii dalka maxaa laga qabtay dastuurkii maxaa laga qabtay wixii qabyada noo ahayo biriga annagana lagu eeday jiray وقبيه نويه نوع دمستر دونا أن لهين نوع أو قبيه إلا أن كان قبيه وهاين قول حسن شيء قبيه ومهين محل قبت محكمة الدستور أو هذيك كرسور أو محكمة هذا هالشيء سيد اللي صار عليه أو حكروا ربنا دولة دانة مدة الجوتي يا جرنا هالشيء عالمي أو صار شيء أو برلمان كلوركي يا هالشيء كستقول صار عليه وإن برلمان كلوركي إلا نعطي الشعب كبرلمان كأ لبدا قرأ إنه ورجيو واللي الدولة بهشيس كان يسوق شيء مصلحة أنا كأركتي ضلت أنا أجرته سام واي
أما وعالمي هو أكو قصبنا إن أنا كم بدنا قلنا عالم وإنه شيء ماله وحي للصوق قال يواشب دعوة دان يبوق يدي وحيد هو إسك شيء ده شيء هو سماجر وهري لو قال ماجر وندك كله شيء وحالة قريوها مستقبل بدنا قرص مقام لقم بشر مقام كهرب مقدم هري هالوصوص على لنا هاي محوها أيام مرة دبلوه آدي وما سنتهين والسلام عليكم ورحمة الله.